halkani waa Gaacir Media. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan kusoo barnaamijka wixii cusub ee Gaacir Media. barnaamijka wixii cusub waxaan idinku soo gudbin doonaa Martin Scully iyo shirkadiisa Turing Pharmaceuticals. Kusoo dhawaada barnaamijka. sida la wada ogsoon yahay, geerida iyo nolosha waxaa gacanta ku haya Ilaah subxaanahu wa tacaala. haddana waxaa jira in sayniska iyo saynisyahanadu ay aaminsan yihiin in shirkadaha waaweyn ee caalamka ee daawooyinka soo saaro ay saameyn toos ah iyo mid dadban ku leeyihiin nolosha iyo dhimashada bani'aadamka. haddaba barnaamijkeena wixii cusub ee Gaacir Media Tube waxaan kusoo qaadan doonaa in shirkadaha daawooyinka soo saaro waxyeeladooda bani'aadamka iyo danaysiga ay ku sameeyaan ama ay u geystaan. gaar ahaan waxaan idiin soo gudbin doonaa Martin Scully iyo shirkadiisii daawooyinka ee Turing Pharmaceuticals. haddaba waa kuma Martin Scully? Martin Scully wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka sanadkii 1983 March 17. Scully wuxuu ahaa ganacsade soo asaasay shirkadaha Elia Capital, MSMB Capital Management. sidoo kale wuxuu agaasimo ka soo noqday shirkada daawooyinka ee Retrophin iyo Turing Pharmaceuticals. haddaba haddii aan guda galno Martin iyo shirkadiisa daawooyinka ee waxyeelada u geysatay muwaadiniinta Mareykanka iyo fadeexadii oo kala kulmay arrinkaasi. sanadka 2015 shirkadda daawooyinka ee Martin Scully ee la yiraahdo Turing Pharmaceuticals ayaa waxay samaysatay shati ganacsi taasoo u samaysatay inay soo saarto kiniinka Darabrim. kadib Martin iyo shirkadiisii waxay mar qura cirka ku shareereen ama sare u qaadeen qiimihii kiniinka Darabrim oo markii hore ahaa $13, waxayna ka dhigeen oo sare ugu qaadeen $750. haddaba arrinkan ayaa Mareykanka oo dhan ka abuuray caro iyo cambaarayn loo soo jeediyay markii Scully Martin iyo shirkadiisii. kiniinka Darabrim waa kiniin antiparasitic ah, haddana dadka fayraska HIV-ga qaba ayaa isticmaala sida la sheegay. shirkadda Turing Pharmaceuticals ayaa mar qura faa'iido xad dhaaf ah ka heshay qiimihii ay sare u qaaday kiniinka Darabrim. Martin Scully oo ah nin waxba aan ka nixin cid dhimanayso iyo cid kale ayaa wuxuu bilaabay inuu sheego macaashkii iyo faa'iidadii uu ka helay sare u qaadistii uu ku sameeyay kiniinka Darabrim. Martin Scully dalka Mareykanka waxaa looga yaqaanaa qofka aadka looga neceb yahay. haddaba sanadka 2017 bishii December 17 ayaa Martin Scully waxaa soo qabtay FBI-da Mareykanka iyadoo la soo saaray maxkamadda degmada qaybta bariga ee New York, taasoo markii dambe lagu helay faldambiyeedyo sida wax isdabamarin iyo in uu sameeyay mu'aamarad amni darro ah. waxaana lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $7.4 milyan. sidoo kale kiisaska dhinaca rayidka ah ayaa waxaa loogu xukumay in $64.6 milyan uu siiyo dhibanayaashii Mareykanka oo dhan ee ay waxyeeladiisii saameysay. waxaa xusid mudan, shirkadaha daawooyinka soo saaro waxay saameyn ku leeyihiin sharciga iyo shuruucda wadamadooda, ayagoo cadaadis saaro mar walba baarlamaanada iyo xukuumadaha wadankooda si ay ugu fushadaan ajandayaashooda guracan ee qarsoon.